shirkii guddiga amniga gobolka Doolo ee toddobaadlaha ayaa ka qabsoomay madasha kulamada xafiiska maamulka gobolka Doolo. Kulankan uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Doolo Mudane Cabdilaahi Deeq ayaa lagu qiimeeyay xaaladda nabadgelyada gobolka ee toddobaadkii la soo dhaafay shaqooyinkii la qabtay. Waxaana sidoo kale kulankan lagaga hadlay sidii loo sii xoojin lahaa amniga gobolka meelaha xiga xuduudaha in si gaar ah isha loogu hayo si looga hortago falalka amni ee ka iman kara waxyaabaha amniga bulshada iyo deegaanka wax u dhimaya, taasoo gabagabadii la isla qaatay isla markaasina la isla meel dhigay dardargelinta shaqooyinka amniga gobolka in la sii adkeeyo wada shaqayntooda. Hoggaanka nabadgelyada ee gobolka Doolo Mudane Maxamuud Saalax ayaa warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV uga warbixiyay kulankani. si guud kulay waxaan hadda ka soo baxnay shirkii nabadgelyada toddobaadlaha ahaa oo toddobaadkii hal mar la qabto. waxyaabaha lagu falanqeeyana waxaa kamid ah xaaladda guud ee nabadgelyada xagga xadadka deegaanka gobolka gudihiisa. waxa hadda dhib ahoo nabadgelyo darro oo hadda taagan ma jirto. si guud gobolka Doolo waa nabadgelyo, wax dhibo jiro ma jiro. xaggan xadadka waan ka warhaynaa, waxyaabaha dhaqdhaqaaqyada waxaa jira waan si guud baan ula haysanaa. gobolka gudihiisuna waa nabadgelyo alxamdulilah, ilaahay ha noo siyaadiyo. marka shirkii toddobaadlaha ahaa ee caadiga ahaa toddobaad kastana waan galaa. waxyaabaha lagu falanqeeyana waxaa kamid ah xaaladda guud ee taagan ee amniga. marka alxamdulilah hadda wax dhibo oo taaganna ma jiro. waxaan u dir lahaa si guud hadda waa nabadgelyo, haddana in nabadgelyadan loo sii adkeeyo oo maaragtay loo istaago. hadda inagu soo foodlay waa iidii hadii la yidhaahdo, waxaa naga hadhay waa isbuuca dambe. waxaa inoo soo foodlay hadda inagu soo dhawaa iidii in markaa nabadgelyo guud loo istaago oo si guud gobolkeenu suu nabadgelyo ugu dhici lahaa. hadday tahay hadday magaraysaa degmooyinka tahay hadday gobolka tahayba si guud saa nabadgelyo ugu tukan lahayn. ilaahay baa ina siiyey, ilaahay inoo siyaadiyo inaan u diyaar garowno baan fariinta u marin lahaa.